maalin walba waxa ilaahay dartiis inaan ku dhacdo inaan qarash ku soo galiyo ya make up lacag ku bixiyo inta ku lacag ku bixiyo جلات العكو بحيو بيل عكو بحيو إلى أمريكا كل على واحد كهلا ما مانو بطريقة أخلاق حمية هذا لا اللو جوجني إن الناس سووا كيسو دكتين اللوقا يسووا قشين وحين يسووا درتين بعد كفاية وحكى على الكفاية توت طالبة ما جرتو وحلا هذا يوابليش الصومال ده هليك ده عيارت ما قرتين سوغاني هاجوكتي هلاو اسمع قل مجرى ولا على هيك قاليا آمنوا حال هذول جلاتو معهم جلاتو وقف تليان جلاتو وقف صومالي معها وقف تلياني آيس كريم وقف إنجليز أف صومالي على الاسكرباء أف صومالي على الاسكرباء صح قراتين ما وريدين معيان فيصلوا أبوي إن قفك أصوت لجي أو قرنتها النادية عبد الله qofkaasi waxa rabaa inaa wiilasha aniga ila dhashayo qofkaas Facebook ka saartiin wallahi alcadi maanta waxa rabaa qofkaas inaa ka saartiin Facebook ma raba inaan waxyaabaha ii soo diray in halkan idin soo dhigo because waa wax oo maartay aniga xataa nafsadeeda aan ka xishoonayo oo aan idin qorin indhihiin in xataa arkaan ama dhagiino ay maqlaan waxyaabaha qaarkooda ma fahamteen laakiin hadalka soo duuduub muhiimada aan ka wato waxay tahay qofkaas waxa rabnaa inaan boos ka saarno Facebook inaan ka saarnaa rabnaa report wada dhahdeen qof walbo barafku waa kii biyaha lagu darsanayay oo qabooba maxaa la cad kaasna waa baraf السلام عليكم anyway دمانتينا ميل كستا joogtiin waqti kasta joogtiin walaalahayga qaaliga waan salaamaya walaashiin kaafiyo waaye oo idin soo noqotay ها لوقا كوصل دقيقة إن شاء الله بإذن الله قف كاسي waxa ku qoran gabar Soomaaliyeed naadiyo waa gabar magac Soomaaliyeed Soomaha faaduma iyadana ku xigta faaduma iyadana soo dhigi doona gabadha laakiin wax kale oo xumaana in kasto qofka magaciisa iga iman waxa iga imaatay lacag ii soo dir iyo waxa rabaan ku sameeynaya gabadhaasna iyadana halkaas ugu gudbinaa hadda wax kale ka arko waa idin soo sheegi doona iyo rag kale oo badan oo استغفر الله العظيم استغفر الله ورارد هذا كهالك سوى سي قد عليك السلام ورحمه الله ادر شرمارك سودو عبد الرحمن سودو لما انت سودو هذا برنامج كان حلكي ان ربي ان hadalkii aan wadanay ayuu ahaa ilmaha iyo familada Soomaalida inaan wacyi gelino وباي ميال كرتانا دهدي ayarna inaan sii wadano inta kalena kaftan waa sheekooyinka qaarkood ha u bixinina hadalladeeda qaarkood waan iska kaftan badanahay waan iska hadal badanahay laakiin se badana dadka ma ku dhaco booska boosoo dhawow أدر وحنا هاي وقتها شرماركة أدر تدكي أن سلوجن أني أديكو إيسو قبقبو هالكني كان حتى كوي لسه هذلني عاو حر بقينا موسيشن نوكينو فنان بقينا كاني عاو لأنه هسيا إن دتك قاركو عاو حربنا ضد وحياة بدل الناس منو اسكت ضلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى إن سيدي والله اللي قد عيرت هلو ها عاو حربنا إنا iska kaftano aan sheekaysano in waxyaabo badan isku dhaafsano biidin Allah taala marka sheekadii ahayd Soomaalida ilmaha inay abuusto ayaan ku sii soconayaa xalay aad baan u daalanaa markii aan ka soo hadlayay gabar baana aan rabay barnaamijkii inay ila daadihiso oo ila daadihiso maxaa la yiraahdaa
ina anigana af Soomaali ugu sheego ku hadlo iyadana af Ingiriis nagu la daadiso marka nasiib wanaag xalay iyadana waa isheli weynay mar dambe ishelay haddana waxa laga yaabaa waqtigan oo kale wali waa iyada waxay u tahay galab bay u tahay waqtiga caruuraha iyo ilmaha iyo hooyooyinka kala diyaarsanayaan waaye marka waa kasii soconayna but weekendiga insha Allah sabtida ama axad oo kale taa iyada noo soo qaban doonaa oo rabnaa inay gabadhaasi intii all my friends that who speaking English or doesn't understand Somali language we're gonna try to get translator inshallah in this weekend bi'idhnillahi ta'ala and then you're gonna understand what I was talking about nowadays marka I hope you guys are forgiving me because I cannot do both in the same time. To speak in Somali and then to translate in English is going to be hard, and also to read in the comment the viewers are commenting me, it's going to be very hard, and sometimes when you translate in two different language there is a big difference and there is going to be a lot of mistakes, and you know it's going to be very really difficult. So I am having an issue with that. So I'm trying to get someone else, my sister, Pilan, hopefully. If she's online right now, it would be great if she come and join us. That would be great. Otherwise, hopefully we're going to do on this weekend, bi'idhnillah. Okay? So I hope you understand about that. Anyway, نركز عنا Somali people. Somali Mariole. نجوكتين سوق دبان سو انفايد كراني عاوي حاجة هردتك لقي فايد كرين شري وحان إلى هاد مفهمين موقتين إنك الله بقى فيسبوك قام وانا قفر انت حتى مقعس ولي وكو اقياليا ور الهي يقان الهو كونا حرس صاحبتي دمتي ايان ماشان كاركا مقعدي ولي أنا أمجيدو إن صاحبتي أبو good night good night good night good night is it morning or night still night for you فرح سودو عبد الحكيم سودو عبد الحكيم أو of Somali أهين of English أهين أوجيدا مشان لسينا سودو بايو ستة هاي وعليكم السلام إن فيديو حربا إنا شير جريسين تتكلم شير جريسين سحبتين جارسين لايك سارتين لعن عن وايه فيديو لينك يا صارن يوتيوب كجرا لينك كاس إنا سوبقتين أو سبسكرايب نيسو سارتين تاس نوانك قعصنيا ولا لما دك قعصنيا إن الله مستعان محاك لنوهري إن شيكوين كنوعس سيد إن أنا واحد شجع نيوزيلند إن برادر بد magacayga saa u soo qortay waay haye mo abay haye abayo insha Allah isku soo noqonayna bismillah aawday amino mawduuca mawduuc kasta wax yar baa laga oraahdaa laga dhahaa kadibna waxa rabnaa arrimihii oo dhan ina hal mar meel iskugu keeno because waxa fiican taqaana maanta dhan hal mawduuc hadaa ku dhaganaano dadka way nacayaan laakiin marka inta mid ka keeno oo inta meel ka keeno oo inta wax ka keeno oo inta wax ka keeno wixii isku dardarno waxa rabaa inta faa'iidada leh inaad ka fahamtiin oo inta wax qof walba uu ka faa'iidi karo ama uu wax isleeyahay alele hadalkan waa wax tara ama hadalkan waa wax qabad leh inuu ka qaadano ma aha yani inaynu always fiirina positive negative way ma fahamta abaayo qasabna ma aha inaan ku dhaho joog waa joog kartaa abaayo
videogan asxaabtaada la wadaag waad ku mahadsantahay imaashaha imaatay adigii inta kale to walaalahayga qaaliga meeshan hadda iiga muuqda iyo inta timiyo noqotay kulligiinba meel kasta joogtiin aad baan idinkaga mahadcelinayaa in la'aantiina waxba ma ahaan karaani mar walba meeshan waxaan usoo fadhiyaa mar walba waxaan ugu faa'iideynayaa waxa waaye waa dadkayga ها كيوي I'm a Kiwi girl إن سكريا صدوا إن دمانتين صدوا هذا شخص سكريا أدبا كو سلام ولالكي إن أديجي دمان فاميل كذا بس صدوا ولا المعاني مركا نكسي سعنينا إن وحربا إن مركا إنك جاهل بحيو مركا إن لي هي guryaha Soomaalida ilmaha abuse baa ka haysta ma ahan yani in la hooyooyinka ama aabayaasha Soomaalida ilmahooda yani gumaysta ama xumeeya ama in waxmaan u qoora balse waxaan ula jeedaa waxay tahay waxay tahay waalidka Soomaalida ilmahooda ma dhageystaan ilmahooda ma dhageystaan waxay isku dayaan inay isloosiyaan in waxba ka maqlin markuu laga yaabo inuu ilmihi ii soo cawdo dhahoy waxaan ay haysto ama aabo waxaan ay haysto aan dhaho waroorda naga tag maxaa sheegaysaa war iga dul dhaqaaq for example markuu ilmuhu aad aragtid ilmahaaga wax wanaagsan sameynaya waa inaad tiraahdo hooy waan kugu faraxsanahay hooy hore u soco hooy waa mahadsan tahay hooy khayr Allah ku siiyo aaba khayr Allah ku siiyo ma fahamtay ilmaha markaa wanaag tustid ee aad negative tustin marar muxuu sameeyaa inuu ilmahaada kugu soo dhawaado laakiin markaa maalmo ku qaylisid iskuulkina dhalinyaro uga qaylinaysa ama ku dilayaan ee qasbayaan ee dhacayaan ilmaha dhibaato badan bay tirsanayaan ma fahamteen marka guryaha Soomaalida hooyooyinka Soomaalida iyo aabayaasha Soomaalida waxay u baahan yihiin inay ilmahooda maqlaan inay ilmahooda hadalkooda dhageystaan ma aha yani inaad dadnimo xumo idin hayso anagu dhaqanku waa ka soo kornay dhaqanka ilmayaasha hadda jooga ay ku koreen ama ay ku korayaan isma lahan Cabdixakiin Xasan walaal macaane ma waxa waay afkaaga fur ilkaaga tirba wada walaal macaan bilis waan kala xishoon walaal macaan waxa aad sii weydiinaysid waa ku sheegay New Zealand ba jooga khalaas okay Kiwi iyo all black iyo maxaa ku daba dhigay waxaas brother hello isma qalmo jira Cabdixakiin ya inta noogu dhig sheekada waa mahadsan tahay aad iyo aad baa mahadsan tahay okay marka ilmihii markaa maqashid isaguna kuma qalaya oo ilmihi ku soo cawdo oo ku yiraahdo hooyo saan ay haysto ama aaba saan bay haysto wuxuu gaarayaa heer oo maanta markii macallimadu ku soo qayliso oo kaleeto ama oo macallimiinta qaarkood kuwa waxay macallimiin xun oo ilmaha xataa iskuulka si gooni ugu dhaqma macallimiin waxa jirta xataa ilmaha qaarkood isku daya inay danayaan ilmaha dhalinyarada teenage-ka oo kaleeto yani teenage-ka wadamadan waxay u yaqaaniin waa taqaaniin ilmuhu markuu 18 sano ka yaryahay ama ilaa 18 sano jiro intuuna gaarin yani 18 u buuxsamin qaangaarka wadamadan 18 kay ku qaangaaraan yani anagu meeshan islaamiyan way in dhaqankeena iyo islaamkeena iyo yani diiniyankeena ilmuhu gabadhu markuu xaygu ka yimaado qaangaar tahay wiilashan ilaa 15 bay ku qaangaaraan ya gabadhu laakiin markii xayd ku yimaado ay qaangaartaa sida anigu ogahay Allahu a'lam inay runtahay inay been tahay ma garanayo ma fahamteen laakiin yani waxaan ka wadaa gabadhan ka wadaa inay ku qaangaari karto asuunas ay caadada gabadha u timaado ama xayd ku yimaado inay ku qaangaari karto ma garan karo balse wiilasha waxa la dhahay Soomaalida ama Islaamka yani 15 jir bay ku qaangaaraan marka wadamadan waxay ku qaangaaraan dadku ilmayaasha western countries-ka 18 marka intayna 18 macallimiin damaaciye ilmaha Soomaalida garan oo waxay gaaladu dhahdaa child abuse baa lagu sameeyay ilmahaas oo kale ama yani macallinka qalad waay inuu ilmihiisa macallinku inuu ilmihii uu macallinku u yahay oo kale uu tamco laakiin dad aan iimaan lahayn waaye oo is celin karinin inaga wax kasta
qaar badan inteena badan dee soomaalida ama islaamka dadka waxaa celinaya iimaanka iyo diintiiba celinaysa iyo dhaqankiiba celinaya laakiin gaalada waxba ma celinayaan dee dhaqan badankoodana ma haystaan diinna ma haystaan badankooda mooda dhiigkana kulligood baa wada gaala ama kulligood baa dad aan waxba fahmayn ama fahamteen yaa baa soo dhawow yaan waxba fahmayn karinin marka calaayi kulli xaal sheekada waxaan ula jeedaa sidaas oo kaleeto marka waxa laga yaabaa macalinka inuu cunuga kaa damco ama macalinka uu cunugaada yacni dhibo oo necab yahay oo ama u necab kalar ahaan u necab yahay ama uu u necab yahay diin ahaan u necab yahay ama qof ahaanba u necab yahay ama sometimes waxaa jirta ilmo dhaha aniga haddaada diinin hooyaday baa kuu sheegaya oo kaleeto marka ilmahaas muxuu ku dhacaya macalinkii inuu cabsanaya markastana wuxuu iska ilaalinaya hubinayaa oo wuxuu cunugaas gooniba u faquuqayaa wuxuu ka dhigayaa yacni inuu hooyadiisi waalidkiis usoo sheego oo kaleeto bal inuu ogaado oo kale sometimes ilmaha dee waa ogtiin qofku markuu weyn yahay qof weyn yahay wuxuu samaynaya waxyaaba badan wax ku ogaado samaynaya ma garata calaa kulli xaal hadal yaan idinku daaline waxaan u baahannahay in isku duubnaano is ognahay oo iska warhayno yacni waalidka uu ka warhayo especially ka warhayo iskuulka ilmaha uu la socdo sometimes iskuulaadka ilmaha waxaa jirta oo hoos low u ah waxbarashadooda ay u liidato markaan ku leeyahay yacni waxbarashada fahmaynin oo kaleeto hadalkayga ma fahamteen yaa fahmaynin oo u baahan marka macalinkii iyo inay isla ogaadaan isku xiran yihiin mar walba macalinka iyo waalidiinta inay isku xiran yihiin waaye macalinkii waalidiinta inay isku xiran yihiin uu ogyahay semesterkan 4 semester waaye 3 biloodba markii la joogo ilmaha markay dugsi sare dugsiga dhexe ilaa dugsiga sare ka gaarayaan 3 biloodba break bay qaataan 2 asbuuca 3 bilood markii la joogo 2 break oo asbuuca qaataan marka sanadkii haafkiisaba semesterkaas markuu dhammaado waxa weeye inaa ogaatid ilmaha oo yacni siduu markaad qofku business leeyaho kale xisaab xir ka samaynayo kale inaa xisaab xir la samaysid macallimiinta carruurtaada oo ogaatay meesha heerka ay joogaan meesha ay ka liitaan aad kasoo kabtid ilmihii oo yacni xataa tuutar haddaa u samayn kartid guriga macallin ugu dhigid oo ka caawiya hadduu xisaabta ka liito kale hadduu kaloo luuqadda ka liito kale hadduu scientiska ka liito hadduu juqraafiga ka liito aad yacni ku caawisid dadka halkaas oo ilmahaadii saad aad u ogtay mar walba aad la socotid meeshuu ka joogo iskuulka ma fahamteen oo waraaqaha ka soo qaadatid sometimes waxaa jirta ilmaha inay isbeen fartiimaan markay ogyihiin waalidku uu ogyahay waalidkiisu inuusan fahmi karin luuqadan fahmi karin waxna qoranin waxna akhriyin marka waxay sameeyaan ciyaalku inay isbeen fartiimaan oo kaleeto warqad intay qoraan ee dhahaan hooyaa fasax ay soo qaatay 2 bir 3 bir intuu maqnaado warqad intuu isku qoro dhaho hooya waxay waan xanuunsanaa macallimada waxa la hadlaysa hooyadiis laakiin isagaa la hadlaya saxiix macallim hooyadiis buu yaqaanaa ama aabihiis buu yaqaanaa axmed soo dhawo walaal marka uu halkaas ilmuhu isaguna uu ka faa'iideysto because hooyadiis ma ogaan karto wax kasta uu samaynayo meel kasta uu marayo wuxuu meeshuu joog macnaha anyway yaan weli ku daalinayni hadalna idinku badanayni waxa waaye soomaalida hadda wax isku taxallujisiin waa samayn kartiin يعني المهنة إنا دقيستين very important very important واي وأرين آدي أدو مهمة إنا أكتهي ماشي مران سكولك مركي آذيان مركي كي ماذان مركا دوكسي جيني سيد وأوغاي معلمين مدرسوين وضمضان لغا وحبا مباران المه وحبا هي مباران المه بين بالوغها يا ماش ما فهمتين ما أركيسا أدي شفيريا حدا wiil walaashay dhashay jiro he's 9 years old 9 sano jira 4 sano hadda dugsi dhiganaya jus ama iska daaye ya alfabetadii hadda ka baxay ma fahamteen ida zulzulad buu maraya ma fahmaysiin marka waxba looma dhigo 15 iskuul bay walaashay ka saarto xistiri kan talo kan baa min ilaharay ilmihi haddana mid kale ku day may kana la haray ilmi kan haddana ku gardartay kan miya la haray ilmi la garanayna wax la haraya macallimiinta u malaynaya aniga because ilmaha Soomaaliya hadda haddaan idin sheego runta America oo kale iyo Canada oo kale Soomaali badan baa degan Soomaali aad u badan baa degan ilmahana si fiican baa diinta loo baraa si fiican baa loo baraa ilmo yar waxa arkaysa quraanka dhameeyay
ilmo yaryar waxaa arkaysaa tartan ku jira school competition ku jira dugsiga competition ku jira oo ilmayaasha kale lala tartarsiinayo xaafad magaalo gobol la iskula tartarsiinayo sida America state bay isticmaalaan state walba ilmo laga soo qaadayo Soomaaliya wala aad baan ugu farxaa marka arko Canada oo kale iyadkana sidoo kale macallimiin aad iyo aad u adag baa joogta oo Soomaali ah marka qofka labintiisa waa la siiyaa hadda yani waalidiintuna haddii dadaan way gaari karaan dadaalkaas libinta waa la siiyaa hadda Soomaalida ku nool America oo kale iyo Canada oo kale aad bay wax u bartaan oo especially quraanka ilmaha aad baa loogu baraa waxa soo raacda hadda Turkiga oo kale hadda yaan hor wax arkay macallimiintii iyo maxaan ku dhahaa Allah musta'an iyo shuuq badan oo wadaadada Soomaalida kamid ah oo tagay oo competition la sameeyay oo caruur badan oo Soomaaliya carabaha kale number 1 bay garaan Soomaalida ciyaalkooda oo quraanka markii ay tahay Soomaaliya waad aragteen iyada wadankooda bay joogaan si fiican baa wax loogu dhigaa laakiin ana hadda wadankan jooga iyo Australia oo kale iyo garan maayo waxa haysta dadka iyo waxay u bedelan yihiin ilmaha si fiican wax ugu barineen waxa keenaya ama koos garaynaya ma garanayo anigu ma fahamteen alxamdulillah horta waa ka fiicanna xataa yani ilmaha handadaada lagu sameeyo xataa Mareykanka kale ku badan yihiin iskuulaadka ilmaha bullyingka lagu sameeyo gabar ba xalay soo qortay kamadaas waa ilaa bullyingki muxuu ahaa handadaad miyaha handadaad iska dheh handadaada ilmaha lagu sameeyo kale oo cuntada isii lacagta waalidkii soo siiyo kale ka qaado oo marmarka qaarkood ilmaha ay ku aflagaadayaan waad buuran tahay ama wada caateysan tahay ama doqon baa tahay ama nahadashid ama walaasha waa fool xun tahay ama adiga fool xun oo kale ilmaha lagu la dagaalaa markaas qalbiga ka dhimataa qalbigu ka dhintaa ilmaha gurigina markuu yimaado hooyadii ama aabihii iyagu 24 hours isku booqsan oo maalin walba iscayniyo ama maalin walba wax isku haysta ama aabihii maba joogaba maba joogaba guriga fadhi ku dirir buu fadhiya waxba cidno ma qabanayo ilmihii horeerkii baa isku wareersan soo xagarateen ma anyway يعني هذا اللي كدان هل ما في عنا بدن إنا أو مرة بلس كواد وضوء أو لسوع العليو مركو حربا إن أنا هذا الله إذا وحن أوليه وحن عن أسمينيو إن وحربا دتك إنه وعيجين النقطة إن دتك النقطة يعني إن أرين كني مانتي إن وح اختار له ووحي حقوقاتنا الحمد لله رب العالمين وح حقوقاتنا الحمد لله رب العالمين بتاجنا ما قلت لكن إن أجنا هاي أو ديرنا هاي إن أبياشونا إني أجين رهودي iyo caruurtooda ay ku warhayaan oo hooyinka lagu sideen hawsha guriga oo hooyinka lagu sideen ilmihii oo dhan oo hooyinka lagu sideen sheekooyinkii oo dhan oo aad waxa waaye ragga Soomaaliyeed badankooda waxay qanaa hadii hooyada furana ilmahana way furaan oo kale ina ilmaheena idin furanay hawshiina aad aabanimadiina mar walba aad la taagantiina meesha ugu soo baxdeen ilmahaada uu qalbiga ka dhiman ya oo qalbiga ka dhiman sax garteen ma okay marka anigu 17 ama 16 years old ama 15 years old oo lagu dhahay depression baa haya waligiin ma aragteen anaga ma aqoon jir depression waxa la sheegayo markaan wadanka joognay run ahaantii ilma isla hadli karayo ilma isku buuqi karayo ilma yani isna qasin karan waan ogtiin ilmaha wadamadan western countries ku dhashay ama wadankii intii laga qabti ka dambeysay ilmayaasha xataa Kenya ku dhasho kale Afrikada qaarkeed kala duwan Carabaha ku dhashay Malaysia jooga Soomaali Indonesia joogan Hindiya joogan China joogan meel ay Soomaali maanta joogin meel alla iimaysan joogin Soomaali malahan الذي صار دواو إن حسين صار دواو مركمل إسمانتي الصومالي محمد إيسن شوقن أنا لقي هنين توتالي ما بتجي تبع صح قرتين معها ملك استيمانت الصومالي شوكتا ملك استيكون نوشهاي حدن لكن وحنا عدد في فرعون الصومالي حدين عدد في فرعون بانه وحقبض له وحتر لي مانتي أو مانتي هديك جاتشي إن كي مال وسوق لكن كله وحتى شيء كبحنيو عنتذا كبحنيو قالوا وحسب التقانون قالوا شيرين بدهان waxa laga yaabaa nin gaala oo maxaa dhahay nawal soo dhawaabay waxa laga yaabaa ninka gaalka ama ninka ajnabiga ah gaal bayaan in kaliya ajnabiga ah muslim haduu doona ha ahaado waxa laga yaabaa intuu dhawaan ku cazumaya oo ii waco oo xaflad xataa jirto ama la shaqeeya ama dadka maxaan ku dhahay business in ka dhaxeeya ha noqoto meel inta iskugu imaatiin inuu jeebkiisa intuu soo bixiyo lacag soo bixiyo
cuntada intuu isagu ogyahay way ogyihiin shilin walba uu xisaabsan yahay meeshuu ku qoran yahay saxanka bariiska uu cunay maxaan ku dhahaa koobkii cabitaanka uu cabay macmacaan bay cunaan markay cuntada cunaan badanaa cadaanku dadka ajnabiga waxay dhahaan dhiseed markay cuntada cunaan dhiseedkuu cunay intay tahay waxayoo dhan wuu ogyahay intuu isku qoro calculator garayo buu wuxuu saarayaa miisku saarayaa kan kale sidoo kale meeshuu saaray kan kale meeshuu saarka adiga qof Soomaaliya tahay waxaan dhaqan iyo baalki kuma ahayn indhaa taagtaaga saxalada war heedhay say wuxuu jiraan bismillaahir rahmaanir rahiim ya xamsa soo dhaw alaykum salaam walaal macaan war waxaan say u jiraan marka dhaqankoodi way lama yaabina hadda waan bartay laakiin waag hore waa la yaabi jiray waxaasoo kale markaa arag ma fahamteen waxa laga yaabaa nin iyo naag aroosanaya ajnabiya inaga dee ninka ragga oo Soomaaliga ah ama ninka muslimka oo dhan wuu og yahay gabadhaas habeenku dhahay qablatu nikaaxaha la dhahay inuu mas'uuliyadeeda saaran tahay oo ninka laga rabo gabadh gurigii wixii la dhigi lahaa gabadhu waxay xiran lahayd haddii aroos loo dhigay faata dhaqdii wixii lacagti lagu bixin lahaa baqbaqdii lacagti lagu bixin lahaa wax fahamtay maaha ninka laga rabaa gabadha waxay xiran lahayd gabadhu waxay cuni lahayd habeenkii maalintii markii xafladda la dhigo habeenkii haddana xaflad gooniya ay rabaan waxaasoo dhan ninka Soomaaliga wuxuu ku xisaabtamaya jeebkiisu ku xisaabtamaya oo ma dhahayo gabaray adna haaf iska bixina haaf baa ka bixinaya yani way dhici kartaa oo hadda dad badan uu ku heshiiyay waxyaabahaas oo kale waan aragnay yani labada qof waxa la dhahay hadda arti laba qof oo isqabtay heshiiskooda hore xuma marka inagu somehow waxa jirto meelo badan aan ku fiicannahay sida hadda markii noqoto cazumaada oo kaleeto qof Soomaaliyeed aqoon bax laga yaabo maqaaxi soo galay uu ku jiro astaghfirullah for example yani tusaale ahaan baadin tusaya maqaaxi baan aniga soo ku jiray cunta cunayay gabar ama wiil aan aqoonin baa soo dhinac fariistay saakal kaali la cun soo fariistay walaal baa iska leeyahay ama wax lay cunto kan maxaa cunaysaa walaal ma fahamtay nin ajnabi ma ku dhahay yani nin ajnabi marka la leeyahay waxaan ka wadaa dadka yani anaka ku Soomaaliga aan hayno oo dadka kala dhaqamada kala leh waxaas ma yaqaan ama ku sameynay excuse me don't touch naagti saaxiibadiisa la socdo leeyahay don't touch naagtiis wuxuu ku leeyahay cuntada saxankii haday taabato ee tiraado dhimis dhaaday waxa rabtid dalba marka hore uu leeyahay maxaa rabtaa cunaysaa cabisa haday tiraado no de no way say u tiri waayo orday dhinaciisu fursana wixiisu rabo cunaya khaalis karig hadhowna halkaas uu shilma labadiisa shil la baxay jeebkiisa naagtiisa waa hada la socota tan anyway markuu xabaas kula aad baan ugu fiicanahay anaga waxa laga yaabaa maanta hadda gurigeyga soo gashin ama guriga hadda for example xamso kale wiilkaas hadda meeshaas daagan waxaan ku soo qaadanay tusaale ahaan baraadayga xanaaqin xamsan gurigiisa tagay xamsa gurigeyga imaaday albaabkeyga soo qarqaraacay kaafi abaayo meelahana maraayay gaariga baa iga jabay oo kaleeto ama waxba igu dhacay yani waxa wuxuu doon dhigi karaa moogtiin baa wuxuu yiri waxa rabaa meelaan seexdo meel aan gaari karana ma lahan soo galbanlay walaal seexo gaaladu waxaas ma samayso أمين عدان كي أجنبي ما سميان وحاس دتك اسكو دقن كهين وحاس ما سميان وحب كلي نكن ميدليا بلاي كلا قبان وحبا في الماء با وشدن سو حكرتين ما مركا anyway يعني هذا اللي كنت علينا نرشا مانتي قربها تالا نرول أدق بها تالا حدان إنكستو نجيس يرجو جيد أدق يهي باليري عدان قرب كلا قبان gooni maayo gubno maxaa kalmadii waxaas ma yeelayo ninka iyo naagta isqaba ama yani qurbaha jooga ama Soomaali ha noqdeen ama Arab ha noqdeen ama Faransiis ha noqdeen Talyaani ha noqdeen hadii nin wada jir wax ku qabsanaynin oo labadood wada tashanaynin oo labadood wax meel wada dhiganaynin qofna qof kale meel ma gaarayo aabaha ajnabiga wuu ogay reerkiisa wax kastoo soo maray nolol kastoo soo martay wax kastoo ku dhaca naagta haday kala tagaan marba ilmiis wuxuu leeyahay weekend oo kale u maanaya sabtidii axadda weekend wax dhagaalada habeenka galabta jimcaha kala shaqada markay ka soo baxaan weekend bay iska galaanba shanta galabnimo ama 6 saac ama 4 saac galabnimo markay u tahay ama 6 saac galabnimo markay tahay shaqadu galaa markuu ka soo baxo markaas uu ilmihiisa ka soo qaaday caawo kale to markii hadii kala tagan waaya hadii isqabaan waa dad isla joogo isqaba ma fahamteen ilmuhu ka soo qaadanaya labadaas bari buu ilmaha haysanaya meeshuu doono geenaya maxaa cunaysiin maxaa cabisiin maxaa idin macaan maxaa idin qaraar wuxuu geenaya meesha baaga ilmaha lagu talagalay ku farxaan uu soo ciyaarsiinaya gurigu keenaya cuntuu siinaya galabta axad oo kale to ileen isniinta shaqaa toos u galaan
isniin ilaa iyo jimcaha galabka oo kale shaqeeya dad baa waxa jira sabtida shaqeeya dadna waxay shaqeeyaan 5 beri oo waxay shaqeeyaan 5 beri ee ah isniin ilaa jimco ma fahamteen marka hadal badan haan ma buuxsho ilmahooda way ka warhayaan ninka Soomaaliga ah isagoo xataa naagta qaba hadda ka hor Australia anoo joogo waxa liiga sheekay ani maan arkin markhaati kama ahayn waxa liiga sheekay nin ayaa lahaa xaaskuu lahaa wuxuu sameeyey gabadha cunug yar waxay 3 caruur bay haystaa malaynaya mise 2 midka yar baa marka ka xanuunsaday waxa waay marka guryaha wadamadan ugama tagi kartid ilmaha hadduu ka yar yahay 17 sano guriga ma ugama tagi kartid haddii wax ku dhacaan ama wax si noqdaan ama gurigaas ku gubto oo ilmaha loogu imaado adaa dusha laga saaraya labada waalid baa dusha laga saaraya soo xagarateen maaha marka gabadhii ilmi baa xanuunsaday waxa istiri kan dhakhtarka gee suu kuwa kala aabahooda wacday waxay tiri xaaji salaamu calaykum calaykum salaam xagee joogtaa rinkan ku jira rinka waxa marka tagsiilo waaye airportka meesha tagaasadu isdaba dhigato oo qofka kala sugayo rinkan ku jiraayo 3 gaari 4 gaari inta 2 gaari mise 3 gaari baa iga horeyso dhahay waayahay tiri ilmi bay gaari ku soo ridatay ma iiman kartid miya may kuma iman karo shaqan ku jiraayo maanta dhan ba halkaas fadhiya hadda igu dhowdahay la inaan yani wax qaado maanta dhan shaqa ma helinin haye dhahdo iska aamustay gaariga ilmaha ku soo ridatay marka maqaaxidu ninkan hadhow gaarigiisii bay arkaysaa baakin yaala hadalka la socdaya gaariga baakinki maqaaxiday ku arki doonto hortiisa uu gaariga yaalo iyo gurigooda reerka ma kala foga way soo baxday ilmihii gaari ku ridatay gaarigiisii baakin yaalay aragtay maqaaxidii agteeda xaafadeeda agteeda hayd buu taagay ninkeedii gaarigiisii yani gaarigii bay aragtay isaga may arkin dabcan waxay ogtahay ninkii inuu meesha ku jiro gaariga furihiisa kale haystay gaariga 2 biti marka 2 biti bay kala lahayn baa u maraynay mise guriga bitiga uu dhigtay furahan isbeerka u ahaa oo guriga yaalay soo qaadatay gaariga bay ku rogatay يعني marmarka qaarkood xanaaq wuxuu qaatay ilmi gaariga intee ku dhex tagtay gaarigiisa furaha ku rogatay bay meel ku soo baakin gareys markay ku soo baakin gareysay dhigtay ilmi bay baxday dhakhtarkee tagtay hawlaheeda soo dhameysatay gurigii bay timi ninkii oo qaylinaya de waxa igu dhacay maanta ma ogtahay waxa igu dhacay gaarigii baa layga xaday yaa ka xaday maanta rinka ana ku jira shaqadii ku jira markaan ka soo baxay shaqadii aan halkaas hadana marayo baan wiil ana la hadlaya baa gaarigii airportka agtiisa laga xaday haye dib ma lahan may waa helaysaa insha Allah ma bacdi booliiska ma wacday waa wacay waxaan sameey garan maayo sidii wax u jiraan garan maayo waxyaabo noocaas oo kala cantara baqashu ku hadla ninkii anyway yana hadalin ku daalinay gabadh waa qoslaysaa markuu qosashay waxa tir waran ku sheega ha niyo laba ada u door horta gaarigaaga meeshu yaala aniga unbaa og maalintii duwato markaan ilmaha kugu soo wacan ku dhaa ilmahada way xanuunsan yihiin kaal ii imo waxaad igu sheegaysa inaad shaqada ku jirto rinka ku jirto meesha tagaasida aad fadhidid soo xagarata ma guriga aad ka soo baxdid 10 goor baad sii noqon kartaa soo noqon kartaa meesha joogto markaan ku irkaa ilmahada iga reeb dhakhtarka ama kan dhakhtarkii ama kuwan yar reerka iga reeb guriga ay sii joog marka ma iga ka qabataa inaad saas igu sameeysid gaarigaadan halkaas u yaala ka soo qaado haa buu yiri balan baa taas ma iga balan qaadaysaa bay tiri haa aan reerkana wada dhaqanay dhahda haddii kale taniyo Soomaa haddii kale Soomaa inoo kala meeshan marka ninkii balan wuxuu ku qaaday inuu waxaas martama ku kacaynin reerkiisana dhaqan doono ceebna intaas ugu filaato because Soomaali waxay dhahdaa ceebtaada hal qof og yahay ma ahayd boqolaal lama tusami ahayd wax saas oo kala maamaadi ahayd way iga kala maqan tahay marka waxaan hadalka iyo ulajeedada aan ula jeedaa halkaas ay dadkii isqabay xataa kala marayaan qaarkood iyo noloshoodii iyo bini'aadamnimadii iyo damirxumadii bal nin rag ah oo niman raba inuu la doodo oo cunugiisii la leeyahay kaale ciyaalkiisii ama kan wax aad u xanuunsan yahay hooyadu markay ilmaha dhakhtarka ula cararayso inkastoo hooyooyin badan oo waxyaabo buunbuuniya way jiraan oo dhahaya ilmihi xanuun yar hayo oo kaleeto ama yani waxyaabo yar dareemayo oo kaleeto inay dhahdo alla ba'ayay alla cunugeyga waa skaraaday alla cunugeyga waa dhimanayay alla cunugeyga saanay way jiraan yani hooyooyinku way kala adkaysin badan yihiin taqaanaa ay dhahdo maxaan ku dhahaa waxyaabahaas oo kale oo dadka ula timaado soo xagarateen ma
anyway yana hadal idinku daalinin marka hadaladana aan idin sheegayo maalin habeen aan raba in kula halkan idin la imaanayo in la soo fariisanayo aan maalin walba dadkiga aan rabo inaan la wadaago ma aha wax iska hadal ah ma aha wax la iska leeyahay waa wax jira waa wax maxaan ku dhahay society-geena ku jira waa wax inagu u baahanahay oo wacyigelin ah oo dhiirigelin ah oo dadnimo ku jirto oo muslimnimo ku jirto oo soomaalinimo ku jirto you know ma fahmaysiin waxa ka hadlayo marka ha u qaadanina yani waxa la dhahay hadaa aragtid qof calooshu qof dacwad wada ilaa waxa la dhahay dacwadiis lama qaado ilaa kii kale aragto calooshu in ka soo jeeda ama calooshu soo dhacday yani waxa loola jeeda qof hadduu maanta dacwad ku yimaado dacwadiis kaliis ha iska maqlin laga yaabo kii uu ka dacwoonayay isagana inuu nolol halis ku jiro oo kale soo waxa garateen ma maajid soo dhawaabo macaan marka Soomaalidan waxaan nahay dadkan hore hadal u gelin oo hore wax u fahminin waxaan nahay dadka low waxaan haysanaa I don't know inaan nahay dad oo maartay low IQ yani aqoontooda ama yani aqliinkooda hooseeyo oo kale inuu yahay in kala garan maayo iyo inay naga tahay yani xumaato ku xumeyn oo kale haabo ii fariiso marka inay tahay ku xumaato oo kaleeto iyo inay ku tahay mid ku taag oo kaleeto garan maayo waxa hadalka dadka aan ugu adkeeno yani maanta waxa laga yaabaa haddaan dan ku sheegto oo kale danteeda inaad khalad u fahamtid oo kaleeto maanta haddaan yani wax kaleeto ka hadlo hadalkayga aad sida kale u fahamtid meesha wanaag u fahmi lahayd dhinaca khaladka aad u fahamtid ma fahmaysid waxaan ula jeedo marka waxa waaye wacyigelinta iyo arrimaha bulshada iyo arrimaha dhalinyarada iyo arrimaha qoyska waxaan u baahanahay in qof kasta oo ay kamid ah dadkayga kamid ah oo aniga dadka igu xiran Facebook familkayga ha noqdeen fareenkayga ha noqdeen ehelkayga ha noqdeen qaraabadeeda ha noqdeen asxaabka sare ha noqoto asxaab hoose ha noqoto because aniga waxa jirta hadda asxaab aanu ilaa yaraanteedadaas naqaana meeshan igu jira oo asxaab aan nahay iyo waxa igu jira dad aan qurbaha isku barnay oo hadda maanta ilaa 20 sano oo qurbaha ku nool aan naqaano marka ciyaar ma dadkaas kale asxaab lama oo koro family friend baan nahay yani dad Spartan dad isku dhoobaan nahay dad maanta hadii mid ka xanuunsado haduu mid ka dhinto isla ooyo isla barooranayaan soo waxa gartama sayid inaad soo dhawo in ilka digir aad ba ku salaamaya marka wacyigelinta dhinacina idinkuna ka wada ya qof kasto in ka mid ah maanta waxaynu joognaa meeshii aqoon zamanka ugu dambeeyaa joognaa ماشي وقدم بيسي وحمد بان مرينا مانتي سوشيال ميديا وحيالو تتوريس سود واباي تتوريس هذا وحا سوشيال ميديا هيالا وحلو أتكيسن كرماها قبله هذا وحا أكي ناك نينكي كالا تاقين حفلد وحد لغا تورتي لو كاميرا وحي كسومري كاميرا وحي كسومرنا حتى وحلو بحيي قبل سومالي دا حفلد إني لغا تو مركي نينكا كالا تاقان كاميرا وحي كسو مرال ده قالوا بحي كل شيكadaas hadda marka ma fahamteen xafladii كاميرا وحي كسو maray فردوسو oo waa salaam baay macaan aad baan ku salaamay qorxay كاميرا وحي كسو maray xafladii ahayd marka naagtu waxay sameysay sheega ninkay kala tageen sawirkiisi bay waxa ka soo dhigtay cake waxay u samaysay sidii ninkeeda ilaahay u sameeyay lugihii gacmihii indhihii sankii sawirkiisii ana oo buufsanna wajiga looga dhijiyay sidii ninka qofka bini'aadanka ahaabana wajiga looga dhijiyay ninka yani keegi baa nin laga soo dhigay ninka waxaan ka wada keegaas aan ka wada ninka maan arag soo waxa fahamteen ma keegi waxay keentay xafladii gabdhaha saaxiibadaheedii ehelkeeda ay ku casuuntay adduunkeela keegi naag lug bay jarat naga sankiisay jarat naga ishiisay jarat naga afkiisay jarat bal idinku sheekada ka sheekay ma adarayo sheekadaas idinka idin dhiibay maxay sheekadaas maxay idinku muuqataa naagtaas ninkaas ma rabitaan baa wali uga jira naagtaas xumaanta ula jeedaa yani waxa soo kale wax social media la soo dhigaa away soo dhawaw sidee soo dhawaw dhamaantii soo dhawaada khiyaarta balse isku day inaad joogtiin oo nala joogtiin oo videogan hadda keeshid like saar hadda keesh comment ka soo bixi dadkaaga kale la sii wadaag video waa linkigiisa saaran ee YouTube channelka booqda oo subscribe iyo soo saar maalin habeen intaas aan leeyahay wa alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh furtoos mar hore ku salaaminaya soo dhawow lagu xunay shopping xun aad baa ku salaamay shopping xunay
marka naagtaas macnaha maxay ugula jeedaa ninkeeda keegii kasoo dul samaysay maxamed shaqalana soo dhawaabo macana yaa ninkeeda sawirkiisii inuu naagsanka goosato oo naag dhigta goosato oo naag afka goosato muxuu samaynaya marka ma ninkaa lagu xumeynaa mise naagtaa lagu xumeynaa mise dadkaa lagu xumeynaya society-ga inagaa dadka society-ga daawanaya waxaan maalinba indhahaynu ku dhacayaan ma inagaa naloo ku talagalay in lagu xumeeyo ku xumeyntaas annaka leemee naloo ku talagalay badana yaa midda kale waxaa kasii daran maalin horeeto waa aragteen wiilkii yidhi 3 naagood baan qabaayoo 2 qol baan deganah oo 3 naagood ku qabaa 2 qol gabdhaha 2 qol sariir dhabala u taala qolka odag aniga iyo xaajiida habeenka hadba markaas taas ii imanaysa ee la seexanayso hadba tan taa raba u wacdaa tii ahayd sheekadii waxaana la leeyahayba waxaan rabnaaba inaan ku qaraxsano Facebook maxaan ku dhahay YouTube-keena iyo Instagram-keena iyo TikTok inaan yaani ku shidana rabnayo waxaan rabnaa inaan caan ku noqono macaanima lagu noqonayaa bahdil ba caanima lagu noqonayaa marka maxaa nolol ka haysanaa society maxaa nahay maanta nolol sheemarayna maanta dadkeenahay maanta maxaa keenaya waxyaabahaas waa inaan isweydiino maaha yani ina aragtiin ka socotiin waa ina aragtiin ka socotiin wiilasha wiil Saciid something ugu qoran tahay ayaa jiro oo TikTok ina aragteen in kala ma aqaane wiilkaas marka wuxuu ku soo caanbaxay sidoo u socdo inuu khaniis yahay laakiin wax khaniisnimo ah yani soo cayaar iyo jilaaca ka muuqdo ma hasaas uu leeyahay ma ahaan wax kale khaniisnimo ka muuqdo yani nin jirkiisi bedelay sida kuwa kale to oo naasa soo samaystay oo yani ilama eka ma fahmaysiin laakiin qofka bini aadamka la iskama nabsaday hadalkiisa lama nabsaday wuxuu taagay video intuu soo sameeyay inta nin Soomaali guursanaa waxaan ka xigaa inaan indhalaan noqdo inuu soo orday wuxuu soo istaagay in Soomaali man hadduu isiinayo 50,000 oo meher ah waa guursanaya macnaha maxaa loola jeedaa ma isaga soo guursanaa mise anaga nin guursanin isaga ma nin baa mise waa naag muxuu yahay hada kayga ma fahamteen waxaa loo jeedo marka society-geena maanta halkaas uu maraya social media halkaas uu namarsiinaya haddaan Soomaalina magac xumo sharaf xumo dhaqan xumo ya akhlaaq xumo gabdhii waxay gaareen intay mariyo ku dhig maxaa leeyahay dirac baati gabadhu intay soo qaadato ya dirac baatiga markay soo qaadato biyo isku soo shubto anigu dirac waxa maleeyay maalinta hore aan arkay video gabadha igu horeysay waxaan u maleynayay in ay mara ku dhigan qoosida loo sameeyay qabto diracii biyo isku soo shubtay biyaha jirkeeda dhan isku soo shubtay show diracii hoos bay ka haysaa dabadeeda si socodkeedan baa aragnaa marka waxa dhacayso inay diracii oo dhan soo aruurisay saas oo kale maradii intay u soo aruurisay saas oo kale halkaas aan hayo kalmaad iskugu dhajisay bay sii socotaa hadhow markay soo jeestaa arkay gabadhii inay qabto mara ku dhagan aysan ahayn marade ay ugu talagashay dabadeeda dadka tusto maxaa socon taqaaniin waayo war maxaa laga xishoon jiray gabadha Soomaalidu waxay ka xishoon jirtay inay dadkaas tusto in uur leedahay ama la ogaado in uur leedahay maanta maxaa socda iyadii intee dhaaftay macalinkeedii ilmihii isagoo bacaloosha soo weynaan intuu gadaal ka soo maro oo dhexda qabto calooshii saas u hayo oo ka dhigayo ukun meesha ku jirto kale dadku ma ujeedin anaku waxayna waa kala tuurin caadi gabadhi waa ay banaankaas ya waa fahmaysaa hadalkayga Soomaa anyway halkaas inu marayna gabdhihii wiilashii wax fiyow naguma jiraan soo xagaratay ma waxaanu joognaa inay maamooyinkii soo qaawiyaan oo dharkii intay iska simbahalka saa noogu soo qabtaan halka noo keenaan waxaanu maraynaa inaynu laba ay wallahi social media waxa ka socda hadda aragti wallahi alcadiim social media Soomaalida dadka kaleeto war waxay ku maqan yihiin in dadka waxyaabo uga faa'iideeyaan waxay dadka qaar ku maqan yihiin in iyagu wax ka faa'iideystaan oo lacag ka sameeyaan social media wax kasta ay sameeyaan bal inay lacag ka helaan xataa lacag lacag ka helaan lacag ka sameeyaan ay dadku ku maqan yihiin sidii app loo sameeyay sidii waxaan loo sameeyay book mid baa ku maqan inuu lacag ka helo oo uu geliyo maxaan ku dhahay Google Play-ka ama uu geliyo App Store-ka oo la qaybsado maxaan ku dhahaa iPhone-ka wax kaga faa'iido ama uu kaga faa'iido Samsung company-ga Samsung iyaka Play Store iska leh
ay ku maqan yihiin dadkii kuwa youtube-ka jooga sidoo kale waxay ku maqan yihiin inay dadkii ay maaweeliyaan oo dadkii ay u sheekeeyaan oo dadkii ay ka qosliyaan oo dadkii kuwa ay ka oohiisiyaan oo dadkii kuwa u shaactirayaan ma fahamteen innaga maxaa ku maqannah kuwa youtube-ka jooga waa is haystaan kuwa facebook war ilaahu alcaalam anyway hadalkii gabagabadiisii gunaanadkiisa baan taaganahay akhyaarteeda meel kastoo aad joogtiin aad baan idin salaamayaa waxaan rabaa videogan haddaa ka heshiinaa like saartid waxaan rabaa videoga haddaad ra'yigaa ka dhiibanaysid يعني برنامج كان كهلا أتكشف رأي كتوصل كسر ديب سوالال كسر ديبو أما أباي كسر ديبو إن وانكم هسنتين لجود تانك يكو حرنان تمال يهبين أديكو حرنتين فيديو وان وحصارا لينكي وكوركي سارا لينكي غاستاقا يوتيوب channel كان واي إذن كاله أنا عليه دمانتين باوضا له يسو سبسكرايب قرية وان مهسنتين هالكاسن إذن كسيتيك دونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته